halkani waa taalada 14 Oktoobar lagu magac daray ee isgoyska Soobe caawa oo kale 7 habeen kadib ayaa dad badan oo Soomaaliyeed halkan ay ku geeriyoodeen qarax ka dhacay galab 9 saac inta la og yahay xilliga oo ahaa maalin Sabtiya waxaan caalamka marka la eego musiibooyinkan oo kale goobaha ay ka dhacaan dadka ku waxyeelooba iyadoo xus loo sameeyo waxa jira diyaar garow inuu jiro laakiin hadda waan caawa taaganahay oo taariikhdu tahay 7 bisha Oktoobar ilaa hadda ma jiro wax diyaar garow oo ka muuqanaya isgoyskan taasi ma waxa ay ka dhigan tahay in aan loo diyaar garoobin in xitaa baroordiiq ama duca loo sameeyo dadkii waxyeeladu halkan ku gaartay laakiin waxa dhanka kale la sheegay in uu soconayo dadaal xooggan oo la doonayo in lagu muujiyo kulamo baroordiiq oo loogu duceynayo dadkii waxyeeladu gaartay dhanka kale waxyaabo isweydiinta mudan waxa kamid ah taaladii dadka loogu magac daray hareeraheeda dhammaan waxa la dhigay qashin ilaa iyo hadda lama oga sababtaas dawladda hoose ee xamar oo nadaafadda qaabilsan iyo wixii la mid ahna ma la oga ilaa iyo hadda sababta ugu hurgeli leedahay isgoyskan Soobe ee magaalada Muqdisho oramada maalmo ka hor waxa ay ka sameeyeen Addis Ababa barnaamij aad u weyn gaar ahaan raalli ahaada waa Tigreega waxay sameeyeen barnaamij aad u weyn 200 oo dhalinyaro ayaa laga dilay rasaas socotay xilligii xilka laga tuurayay ee wasaarihii ka horreeyay Abiy Ahmed oo hadda jooga dadkaasi iyaga oo gaarayay ilaa 3 milyan ayay isku soo baxeen cid soo qasbana ma aysan jirin laakiin Soomaalida oo asal ahaan inta la hayo dad muslim ah lagama hayo war saxan oo ku aadan inay u duceeyaan ama baroordiiq u sameeyaan dadkii ka geeriyooday halkani waa taaladii 14 Oktoobar ee magaalada Muqdisho waxyeelada halka ay ka dhacday maxaa loo heli lahayaa diyaar garow socda